Waa in aad habeenkii barkinta hoosteeda gashataa toon, kuna seexo. Faa'iidada caafimaad ee toonta laga helo. In qayb toon ah aad hoos gashato barkinta waxay leedahay faa'iidooyin badan. Dadka qaar waxay la tahay in aysan wanaagsanayn toonta maadaama ay soo shiirayso. Balse caalamka oo dhan ayaa laga isticmaalaa, waxaana lagu macaanaystaa cuntada. Balse ma og tahay in toonta loo adeegsan karo qaabab badan, xitaa qolka jiifka. Halkan kala soco faa'iidooyinka ay u leedahay qolka jiifka. Xasilooni iyo deganaan. Hurdadaada waxay noqonaysaa mid qoto dheer oo xasiloon haddii qayb yar oo toon ah aad geliso barkinta hoosteeda. Waxaa suuragal ah in la yaab ay kugu noqoto, balse maadada sulfuroos ee toonta ku jirta iyo shiirka ka soo baxaya marka ay isku darsamaan waxay leeyihiin saameyn xasilooni ah. Shiirka toonta wuxuu soo gaarayaa barkinta si aayar ah, wuxuuna fududeeyaa in si degan aad u hurdo. Waxaa intaas dheer in ay tayada hurdadaada u fiicnaanayso. Si kale haddii hadalka loo dhigo, si degdeg ah oo wanaagsan ayay hurdada kaaga imaanaysaa. Sidee u adeegsanaysaa? Hal ama laba qayb oo toon ah geli barkinta hoosteeda, qolofta ha ka fiiqin, kadib waad arki doontaa saameynteeda. Sida canug yar ayaad u hurdi doontaa. Hana ka walwalin sababtoo ah qolka kama soo shiiri doonto toonta, kadib marka aad soo toosto, adigana kaama soo shiiri doonto. Haddaba waxaa wanaagsan in aad tijaabiso. Dhibaatada hurdo la'aanta. Muddo qarniyo ah, dadka ku kala nool daafaha caalamka waxay toonta u adeegsanayeen hurdada wanaagsan. Waxay leedahay in qofka uu si fiican u hurdo waa haddii barkinta hoosteeda la geliyo. Kulaylka iyo udgoonta toonta waxay xoojiyaan shaqada maskaxda, waxayna daweysaa hurdo la'aanta. Sidoo kale, cilmi baaris ayaa lagu ogaaday in qarowga iyo riyooyinka xun ay meesha ka saari karto. Haddaba haddii hurdo la'aan ay ku dhibaataysan, dawada waxay ku taalaa jikada. Toonta waxay u wanaagsan tahay caafimaadka jirka, si gaar ah caloosha. Toonta waxay u fiican tahay caloosha. Haddii aad qabto gaaska caloosha, waxaad galaas biyo ah ku darsan kartaa wax yar oo toon ah oo shiidan, kadibna cab. Dhadhan iska caadi ah ayay yeelanaysaa. Kadibna seexo. Toonta waxaa ka buuxo maadada allicin oo ah dareere sida saliidda ah oo leh awood ay ku disho bakteeriyada. Awooddaas ay ku dilayso jeermiska iyo bakteeriyada waxay kaga hortagaysaa cudurro dhowr ah sida hergebka, xiranka halbowlayaasha dhiigga, beer xanuunka, hurdo la'aanta, bidaarta iyo dhibaatooyinka hormoonnada. Magacaygu waa Maryan Adan Xaaji, halkan aad naga dawanayso waa deeqsame. Haddii aad ka hesho muuqaaladeena, fadlan nagu dhiirigeli lagtaada, channelkeenana ku soo biir, waadna ku mahadsan tahay. Tixgelintada waa wax agtada ka fudud, anagana wax weyn noo taraysa.